السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته والسلام أنا أصحابتي كنت عن ساينس 24 maanta waxaan ka hadlaynaa waa maxay perimeter and area of the square shapes markaan ka hadlano waxaa loo yaqaano geometry-ga waa concept aad iyo aad u muhiimsan qofku inuu kala fahmo waa maxay perimeter waa maxay area marka casharkeena ayaynu kaga hadlanaa gebi waa maxay yihiin perimeter waa maxay area yihiin iyo si loo saro shaygu markuu yahay square shapes-ka square shapes wax kale maaha waa shaygu markii afartiisa dhinac ay isla ekaadaan marka shayga haddii afartiisa dhinac ay same size yihiin waa isku mid yihiin waxaa lagu magacaabay square shapes marka shaybkuna dhinacyadooda kala duwan dhinacyadooda kala duwan yihiin marka shay walbana magac buu leeyahay marka insha allahu tacaala kuwaas shay walbana si loo soo saaro areas perimeterkiisa iyo waxyaalo kaloo la mida insha allahu tacaala casharadeeda baanu ka hadli doonaa laakiin casharkayga maanta waxaan xoog ku saari doonaa si loo soo saaro areada iyo perimeterka shaygu markuu yahay square shapes oo afartiisa dhinac ay isleeyihiin haddii aanu ka bilowno waa maxay perimeterku wax kale maaha waa distance ku wareegsan shape marka distanceka hadduu shape haddaynu haysano tusaale ahaan oo kale haddaynu casharkan kaga hadalno oo ah waxaa loo yaqaana square marka distanceka shayga ku gadaaman ba waxaa loo yaqaanaa perimeter marka maadaama distance shay ku gadaaman distancekuna waxa weeye waa length oo waa dheer waa one dimensional quantity oo hal dhinac waa fogaan hal dhinac weeye marka sidaa ogaad haddaynu fogaan ka hadlana fogaanta waxaa lagu cabiraa sidaan naqaano mitir centimeter millimeter kilometer mile iyo wixii lamid ah marka shaygaas aynu fogaantiisa ka hadlano oo cabirkiisa one dimensional quantity yahay marka shayga cabirkiisa waa la raaciyo unitku waa very important markaanu ka hadlano waxa loo yaqaano perimeterka iyo areada markaan ka hadlano shaygaas waa in cabirkiisa raacinaa marka hadday bilaa cabir tahay ma qeexna waxaad ka hadlaysid inaad ka hadlaysid perimeter inaad ka hadlaysid waxaa loo yaqaano area oo inaad ka hadlaysid volume waxaad ka hadlaysid markaa ma qeexna waxaad markaa u jeedid sidaa awgeed markaanu perimeter ka hadlano inaynu raacino cabirka waa very important waana wax aad iyo aad muhiim ah marka haddaan usoo ku gudagalo sida loo soo saaro perimeter of the square marka square waxaynu leeyahay afartiisa dhinac waa isleeg shaygaas marka afartiisa dhinac hadday isleeg yihiin hadda tusaale ahaan waxaan haysanaa square-kan afartiisa dhinac waa isleeg yihiin oo mid walba waa 10 haddii afartiisa dhinac isku daro waxaan helayaa 40 centimeter fogaanta aan socday oo shaygaas aan ku socday waa 40 centimeter tusaale ahaan oo kale afartiisa gees haddaan saa usoo wareego shaygaas waxaan soconayaa 10 centimeter iyo 10 centimeter iyo 10 centimeter iyo 10 centimeter haddaan isku wada darana waxay noqonaysaa 40 centimeter oo waa socdaa haddaan aan si toos u socon lahaa 40 baan helaa centimeter marka 40 kaliya ma qorayo markaan isku perimeter ka sheekayno waa inaan 40 aan raaciyo cabirka centimeter raaciyo hadday meter tahayna meter raaciyo hadday kilometer tahayna kilometer baan raacinaya marka sida un baad kasoo saaraysaa marka qaacidooyinka sida aad ku arkaysa buugaagtana si loo soo daraandariyana wax kale maaha afarta dhinac uun waa laga soo daraandariyay haddaan eegno si loo soo daraandariyay qaacidadaas wax kale maaha tusaale ahaan oo kale waxaan haysanaa shaygaas afartii dhinac isleeyihiin marka afartii dhinac haddii a baan ku magacaabay haddaan doono side baan ku magacaabi karaa haddaan doono waxaan odhan karaa l baan odhan karaa oo length marka magac aan ku magacaabay muhiim ah laakiin afartii dhinac isleeyihiin ayaa muhiim ah marka perimeterku waxay la mid yahay haddaan sidaa casharka hadeer tusaalaha oo kale hadda ku sheegnay afartii dhinac aan isku daraya marka afartii dhinac oo kale perimeterku wuxuu la mid yahay afartii dhinac maadaama hadda aan a haysto afar jeer isku daraya a waa a oo lagu daray a oo lagu daray a oo lagu daray a waxay la mid tahay afar a marka 4 a bay la mid tahay marka afartaasna waxa weeye maadaama afartu ay isku mid yihiin 4 afar gees ay tahay afar a hal ana ka soo qaadan kara marka sidaa awgeed formulada laga soo daraandariyay marka laga hadlayo perimeter of the square waxaa lagu odhanayaa afar lagu dhuftay side marka hal dhinac haddaad haysatid haddii ama dhinac intuu doono ha ahaado ama 5 ha ahaado 20 ha ahaado cabirku doono ha ahaado dhinacaas hal dhinac waa lagu siinaya maadaama afartii dhinac isleeyihiin oo uma baahna inaad afartii dhinac u qortid hadeer dan afar dhinac oo afar jeer afar aan qoro afartii dhinac ku qoro 4 centimeter muhiim ah hal dhinac haddaan sheego inta kale waa cad yihiin oo waa wax qeexan marka sidaa awgeed intaan odhan lahaa 4 centimeter lagu daray 4 centimeter lagu daray 4 centimeter lagu daray 4 centimeter afartii haddaan isku wada daro waa 16 centimeter marka waxa iga fudud oo formula loo soo daraandariyay maadaama afartii ay isleeyihiin afar oo lagu dhuftay hal side waxaan odhanayaa 4 times 4 centimeter square marka 4 waa afartii waxay taagan tahay afartii dhinac 4 centimeter 4 centimeter waa wasay bay taagan tahay marka 4 centimeter marka centimeter waa raaciya 4 times 4 waxna waa 16 centimeter ka waa raaciya cabirka marka centimeter cabirkaas uu yahay waa raacinaysa marka sidaas loo soo saaraa marka laga hadlayo perimeter perimeterka shayga markuu yahay afar gees leeg afar dhinac isleegina square ay yahay marka saas loo soo saaraa marka taas waxa weeye waa perimeter marka soo saarasid perimeterka square ka afar dhinac isleegihiin kaliya soo aansa hal afar lagu dhuftay side marka side ku doonaa hadda afar centimeter baa sanad dul 5 yahay
sidoo kale hadduu 6 yahay sidoo kale in afarta waa kaas isku welaysaa cabirka shayga min side lagu siiyo ku dhufanaysaa marka saas loo soo saaraa perimeterka shaygu markuu square haddaan u nimaadno waxa loo yaqaano area of the square horta waa maxay area wax mini waa shayga intuu micnihii shay ku garaamay ama ku fadhiyo tusaale ahaan oo kale haddaad beer leedahay ama guri leedahay shaygaas inaba qol micnihii intuu ku fadhiyo oo kale waxaa inta shaygaas ku fadhiyo waxaa la dhahaa area marka waa baaxadda shaygaas ku fadhiyo shay walba baaxad ku fadhiya baaxadda ku fadhiyo weey marka baaxadda inuu shay intuu ku fadhiyo hadda guri oo kale inuu wuxuu leeyahay dherer iyo balac marka dherer iyo balacaas haddaan isku dhufano oo dherer iyo balac ay tahay marka area wax noqon saa two dimensional quantity because waxaan sanaa laba dhinac dherer iyo balac wanaagsan marka length weeysa labada dhinac maadaama ay tahay area waxa weey waa two dimensional quantity sida awgeed labada dhinac waxaan ku cabirnaa centimeter square millimeter square kilometer square decimeter square iyo wixii la mid ah shaygu square waxa ku sheegaysaa inuu shaygu laba two dimensional quantity yahay oo laba dhinac laba sir laba sir uu leeyahay marka cabirkan inaad square ka raacsid aad ayaa muhiim u tahay marka mar haddaan ka hadlayno bedka ama waxa loo yaqaano area-da waad raacisaa square marka square kaas cabirka shaygaas iyo square ka raacisa sida awgeed tusaale waxaan haysanaa square kan hoosan haystaa 4 waa 4 yani 4 waa 4 ah yani 4 dhinac isleeg ama waxaan ku qori karaa L oo kale oo yani ama waxaan ku qori karaa side yani dhinac isleeg marka area waxaan ku heli karaa maadaama ay laba dhinac ay yihiin length ways ay ahaayeen oo 4 laba dhinac isleeg kaadeen waxaan ku qori karaa ka side square baan oran karaa yani side square wax kale maaha waa jibaar yani laba jeer baa isku dhufto waa side yani aan jibaaray yani waa side dhufto side waa s dhufto s ama r dhufto a baan oran karaa marka for example oo kale hadda waxaan haystaa a waxay la mid tahay 4 cm waxaan oraa area waxaa loo qoraa a weyn baa loo qoraa marka la soo qaadayo area yani area marka soo qaadaysa a weyn baa qoraysa marka area waxay la mid tahay side square oo kale ama l square haddaan l soo qaato length aan odhan lahaa marka 4 cm lagu tahay 4 cm square wax ka laba jeer baa isku tugay haday square tahay square wax kale maaha laba jeer baa isku tugay marka 4 times 4 waa 16 cm square centimeter times centimeter na wax kale maaha inta la odhan lahaa centimeter lagu centimeter aan qori lahaa 16 centimeter na waxaan tahay centimeter square marka taas ku saaraya markaan soo saarayo area of square markaan soo saarayo shayga square ka area markaan soo saarayo shaygi dhinaciisa marka la isiyo hal dhinac la isiyo dhinacaasna waa isku dhufanaya maadaama laba shay la isku dhufto taa laba isku dhufanaya marka 16 centimeter square hadii la dhaho macnaheedu waa maxay macnaheedu wax kale maaha 16 centimeter shaygaas wuxuu qaadaa 16 macnaheedu oo centimeter hal centimeter square oo midkiiba yahay 16 16 box oo yar oo midkiiba centimeter square yahay baa dhexdiisa gali karaa tusaale ahaan oo kale haddaan tusaale ka shaqeeyo shaygaas haddaan ka bilaabo ugu horeeya waxaan isla shay hal dhinaciisa balaca uu yahay 1 centimeter dhinaciisa dhererkan uu yahay 1 centimeter marka waxaan dhisay si loo saaro area square waxaan labadiisa dhinac macnaheedu waa cell square labadiisa dhinac waa sharks square granada maadaama ay isku mid yihiin 1 centimeter lagu 1 centimeter waa 1 centimeter square shaygaas dhexdiisa waxa gali kara qaadi kara 1 centimeter square baqay marka haddaan kala baado nimaado shaygaasi baliciisa iyo erigsu way isleeyihiin labadu waa 2 centimeter waa 2 centimeter lagu 2 times 2 macnaheedu waa cell square cell square gari marka 2 times 2 dan ahana 2 centimeter times 2 centimeter waxay tahay 4 centimeter square marka waxa 4 centimeter square waxay noo sheegaysaa inta square meesha galaya marka 4 square oo yar oo midkiiba hal dhinaciisu yahay 1 centimeter square baa galaya marka hadda shaygaas oo kale aan halka ku xusnaan ku qornay away 4 macnaheedu midkiiba yahay dherer balciisu 1 centimeter square yahay baa galaya 1 centimeter square iyo 1 centimeter square sidoo kale waxaa la mid ah shaygu hadduu yahay 9 centimeter square yani 9 box oo yar baa galaya oo midkiiba 1 centimeter yahay balciisu 1 centimeter square baa galaya 16 kale sidoo kale waa sidii marka shayga inta galaysa hadii lagu dhaho 20 centimeter waxa galaysa 20 hadii lagu soo 20 centimeter square 20 box oo midkiiba 1 centimeter square yahay baa galaysa inta ku fadhiyo macna shaygaas weey waa muhiimada intay ku sheegayso weey marka ashayagana maanta aan kaga hadlaynay perimeterka iyo area-da square shapes-ka insha Allah ta'ala kasan kusoo koobaynana wassalaamu calaykum waraxmatullaahi ta'ala wabarakaatuh aragtidina iyo fikrada qabtaan insha Allah ta'ala comment nagu soo dhiiban kartaan iyo casharka aad jeceshiin ganacsiga inuu soo gudbino YouTube